hamburger la gado $120 sidaan ognahay xaysiisku waa muhiim ganacsiga haddii aan la xaysiin ama aan suuqgeyn loo sameyn waxa uu noqdaa ganacsigaasi badanaa mid aan sii waarin ninkani magaciisu waa Stephen waxa uu menyuga meheradiisa ku daray hamburger lacagtiisu tahay $120 taasina waxay keentay in dadku marka ay arkaan isweydiiyaan maxay tahay sababta intaasoo lacag loo gaday hamburgerkan taasina waxay keentay in dadku isku sheegaan oo ay hadal hayaan hamburgerka arrintaasi darteedna meheradiisu waxay noqotay mid caan ah oo suuq fiican ayay yeelatay ninkanina wax qarasha ugama bixin xaysiiska ganacsigiisa isla arrintaasi oo kale waxay ka dhacday Soomaaliya Coach Movie waxa uu isna ku soo daray menyuga jimkiisa bishii $5,000 halka kuwa kale ee menyuga ku jiraan ay ahaayeen qiimo iska caadi ah oo gaaray $35 ilaa $70 laakiin Soomaalida waxa ka yaabiyay $5,000 taasina waxay keentay inay hadal hayaan businesskiisa heer uu gaaray magaalo walba oo Soomaaliya kamid ah businesskiisana waxay ka dhigtay mid la wada yaqaan oo uusan wax xaysiisa ku bixin waan ognahay inaysan jirin cid ku bixinaysa $5,000 jim midaana waxa ku cadeynaysa in dadka si dadban loogu adeegsan karo inay wax ku xaysiiyaan cid walba oo hadal haysay ninkan waxay xaysiis u sameynayeen businesskiisa arrintan waxa isticmaali kara qof ku kalsoon ganacsigiisa ogna inuu ganacsigiisa yahay mid tayo sare leh